ruux aqoontiisa baro lagama maarmin ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay. بسم الله الرحمن الرحيم. عشرku waxa weeyaan waa casharadii online ka ay ka bixi jiray dugsiga sare ee 20 June khaasatan maadada physics-ka. marka maanta waxaan ka soo dhigayaa casharkii physics-ka ee form 1 ka ahaa. tusaale ahaan haddaan yar halkan ka hadlo subject-ku waa physics, grade-ku waa form 1, chapter-ku waa energy lesson 1 oo casharka koowaad. haddaan casharka koowaad markaa aynu toos u gudagalno waxa weeyaan what is the energy. chapter-kan sida magaciisa ku qoran waxaa lagu bartaa noocyada tamaraha kala duwan maadaama form si overview iyo si guud ah casharkan markaa loogu dhigtaa. tusaale ahaan haddaan marka ugu horeysa ka hadalno what is the energy waa maxay tamartu. energy tamartu is the ability waa kartida to do a work. marka laga hadlayo tamari waxay noqonaysaa kartida lagu qaban karo shaqo. waay haddaan tusaale ahaan hoos u yara daadegno waxa weeyaan animals dhirta and plants and animals I mean need waxay u baahan yihiin energy tamar to their life process. dhammaan processyada ka dhacaya noloshooda waxay u baahan yihiin energy. for example systems ko dhan baa halka lagu sharaxa waxa weeyaan marka waxa weeyaan energy-ga maxay uga baahan yihiin they need energy tamarta waxay uga baahan yihiin to grow inuu ku koro shay or move ama ku dhaqaaqo. waxa weeyaan tamar la'aanteed noolaha hadduu yahay dhir iyo hadduu xayawaan yahay tamar buu u baahan yahay si uu u koro at the same time si uu u dhaqaaqana tamar baa iyadana ka caawinaysa. marka energy-ga waxa weeyaan both animals and plants machines. marka laga hadlayo xagga noolaha machine-kuna wuxuu u baahan yahay energy to do a work si uu hawl u qabto. waxa weeyaan gaarigaas soconaya haddaan shidaalka lagu shubin dee waxa weeyaan ma dhaqaaqayo. mashiinka kale isaguna la midka ee hawl qabanayana it needs an energy tamar buu u baahan yahay tamartaasoo uga baahan yahay to do a work si uu hawl u qabto. waay markaynu intaa ka nimaadno the unit of the energy halbeega lagu cabirayo energy-ga is joule baa la dhahaa. halbeega lagu cabirayo energy-ga ardaya waxaa loo yaqaanaa joule waxaa soo saaray ninkii soo saaray ayaa loogu magac daray buugana waxa weeyaan inagu haddaynu doonno haddaba marka la leeyahay energy-ga hal joule muxuu la mid yahay halbeegyada kale uu equivalent-ka leeyahay ama uu la midka yahay waxaa ka mid ah joule is equal to newton meter. joule-ku wuxuu la mid yahay maxay halbeega loo yaqaano maxay newton meter-ka oo waxaa la dhahaa 1 force of 1 newton marka xooga 1 newton and move u dhaqaajiyo a distance masaafad ah 1 meter. markuu xoog 1 newton dhaqaajiyo 1 force of 1 newton move an object halkaadan move ku daro move an object shayga u dhaqaajiyo a distance of 1 meter ayaa la yiraahdaa waxa weeyaan 1 joule intaas 1 joule la mid ah. markaynu intaa energy-ga kaga nimaadno waxa weeyaan noocyo fara badan oo tamar ayaa jira different types of energy noocyo kala duwan oo tamar ayaa jira. waxaanu halkan ku soo gudbin doonaa noocyadaasi mid walba sharaxaadiyada yar ee gaaban iyo example baynu ka bixin doonaa. haddaynu markaa ku socono there are several types of energy noocyo fara badan oo tamara ayaa jira noocyo several indoor oo tamara ayaa jira. tusaalahaan waxa ugu horeeya elastic potential energy tamarta loo yaqaano elastic potential energy haddii aynu sharaxno waa energy stored in materials waa walaxda ku jirta ama ku kaydgaraysan muxuu ahaye walxaha that have been pen walxahaasoo la qalloocin karo oo ama stranger la kala jiidi karo. tamarta walax ku kaydgaraysan isla markaana bending lagu samaynayo ama stretching lagu samaynayo la kala jiidayo ayaa loo yaqaanaa magaceeda waxa loo yaqaanaa elastic potential energy. tusaale ahaan tamartan yaale waxa la tamartan stretching sprinada kala baxbaxa springa kala jiida marna isku urura tamartan u leeyahay. waxa kaloo la rubber band in jirka lacagta lagu xidho isaguna wuxuu noqonayaa energy-giisa ku kaydgaraysan wuxuu noqonayaa elastic potential energy buu noqonayaa. waay haddaynu tamartaasi A u bixino tamarta B haddaynu nimaadno waxa sida kala horeeyaan baynu akhri doonaa buugaagana waxa kaga jiraan page 85 and 87
buugga sinimiskaaga foonka ah waxaad ka aqri doontaa energy-gan definitionadooda iyo exampleskooda page 8 ilaa 7 bay kaga jiraan way tamarta labaadna waxaan u bixinaa markaa thermal energy thermal means waa kulayl thermal energy waxa weeyaan tamarta kulka ayaa la dhaaf Soomaaliga waxa loo yaqaan maxay tamarta kulka halkaan oo inaga bracket gelinay heat marka heat energy iyo thermal energy waa isla macno waxa la yiraahdaa energy due to the fast moving particles in hot objects waa tamarta waxa weeyaan particles aad iyo aad u dheereynaya oo particles ka tusaalahan birta ay ka samaysan tahay kale marka kala dhigan wax ku korsan oo kale iyo for example kaawiyad oo kale marka soo qaadato waxa weeyaan tamartaasi fast moving particles bira oo dabka gudbinayo oo midba molecule kale u sii dhiibayo ayay marka tamartani maxay dhex soconaysaa dabeetana waxa weeyaan tamartaas marka waxa la oranayaa thermal energy waa tamarta kuleelka tusaalahan an electric kettle baa la dhahaa kildhiga fish tale ee marka fish tale galiyo lagu korsan karo shaah isaga laftiisu waxa weeyaan birtu ka sameysay ayaa particles ka in hot objects dabeetana waxa weeyaan marka ugu horeysa isaga kululaanaya dabeetana markuu kululaado it will be transferred to the heat energy to the water shayga ku jira ayuu u sii gudbinaya tamartaas waxa kale oo kamid ah an electric iron kaawiyadu waxay kamid tahay iyaduna waxa tamarteedu wuxuu noqonayaa thermal energy waxa weyn qayb bir ay ka samaysan tahay birtaas markay kululaato shayga baa lagu kaawadeeyaa markaas shayga lagu kaawadeeyaa dabeetana energy ba transfer to the object maradii bay u gudbinaysaa dabeetana shaygii waa ta kaawadaysa marka inta badan hot materials kan ay ka samaysan yihiin shayadani waa biraha aan oxidation ku dhicin birtaasi ma gubato dambas ma noqoto wax kale ma noqoto marka dab lagu soo daayana way kululaataa shaqadii loo baahnaa bay qabataa marka fishta laga saarana caadigeedii bay ku noqotaa birahaasi ka samaysan tamarta noocaas waxaa la yidhahdaa thermal energy haddaynu qodobka C u soo gudubno tamarta saddexaad nuclear energy baa la yidhahdaa sida magaca nuclear inooga muuqata waa tamarta ka jirta in the nucleus of the atom buuda atomka waxa weeyaan buudiisa tamarta ka imanaysa ayaa la yiraahdaa nuclear energy due to the changes in the nucleus of the atom waa energy ka soo baxaya isbedelada ka dhacaya buuda atomka inta badan marka radioactive materials ka laga hadlayo buuda unstable ka ayaa waxa weeyaan radiation ka soo deynaysa ay tamartan ka soo baxda marka nuclear changes baa la yiraahdaa tamartan iyadu waxa weeyaan waa tawa fuelka nuclear power stations warshadaha waaweyn ee nuclearka lagu sameeyo iyo waxa weeyaan ayay fuel u tahay marka radioactive fuel in a nuclear power station tamartaas marka la oranayo iyadana nuclear energy baa la yiraahdaa waa tamarta buuda atomka iyaduna marka laga qabto tamarta D marka loo gudubno chemical energy baa la yiraahdaa waa tamar chemical energy which produces tamarta laga soo saaro as a result of a chemical reactions markay falgalada chemical dacaan tamarta soo baxda ee marka aynu waxa weeyaan materials ka looga faa'iideysto ayaa la yiraahdaa chemical energy baa loo yaqaan oo waxa weeyaan tusaalahan eeg wana fuel burns and energy marka jiinka gaarigu markuu shidaalka isticmaalo shidaalkaas uu gubtaa markuu gubtana energy isku bedela oo ku socdo marka waxa la yiraahdaa iyadu taas waxay noqonaysaa chemical energy waxa kale oo tamartan kamid ah baynu nidhi one human uses a food marka bilaadanka cuntada cunaya marka cuntada soo cunto tamar baad ka helaysaa marka cuntada cunto tamar ayaad ka helaysaa tamartaadi maxay maraysaa chemical energy cuntadii baad caloosha ku riday dabeetana waa la burburiyay markii la burburiyay waxa loo kala saaray cuntadii laba qaybood qayb jirka wax u tartay oo tamar u noqoto xoog noqoto aad wax ku qabatay iyo qayb kale oo waste product noqotay iyadu muxuu ahaayay qashin saar martay marka tamartaasina waxa weeyaan waxa la yiraahdaa example waxay u tahay chemical energy tamarta chemical battery produces electricity battery-geena yar ee tooshka markaynu ku ridano iftiimaya ama markaynu shayga kale raadiyooga ku shidno codka isku bedelaya kaasina waxa weeyaan energy-ga ku kaydsan ayaa isagana waxa la yiraahdaa chemical energy ma noqonaya oo chemical energy-gaasina waxa weeyaan marka shaygii battery-gii la geliyo tamartiisii chemical energy-ga ahayd waxay isku bedelaysaa tamar kale oo loo yaqaan electrical energy halkaas marka iyaduna maxay ku jirta marka taasina waa chemical energy markaynu barano kinetic energy baa imanaysa kinetic energy waxa la yiraahdaa tamarta socodka
waxa la yiraahdaa energy of an object waa tamarta that are in motion shayada socodka ku jira ay leeyihiin tamarta shayada socodka ku jira ay leeyihiin ayaa noqonaysa kinetic energy waa tamartii socodka tusaale keen hadii lagu dhaho waxa kamid ah moving car baabuur soconaya energy is kinetic energy waxa kale oo kamid ah ball moving kubad iyaduna soconaysa if you kick a ball hadii aad kubad laagto kubadaas waxa weeyaan gidaarka markay ku dhacdo hadana way soo noqonaysaa marka moving bay ku jirta tamarteeda marka waa maxay kinetic energy for example waxa noqonaysaa tamar socod tamarta kale iyadana la doonayo inaan fahanno waxa weeyaan electrical energy waa tamarta korontada electrical energy waxa la yiraahdaa maxay waa tamarta korontada energy waa tamarta due to the electric charge moving electric charge soconaya ayaa tamartan dhaliya waxa weeyaan tamartan waxa weeyaan labadaba way noqotaa labadii electricity way dhaliya electric current in the wires iyo waxa dhaliya charge comes from the electrostatic substance charge ka imanaya electrostatic waxa la yiraahdaa tusaale ahaan waxa tamarta korontada waa energy tamarta due to the electric charge electric charge ka moving soconaya ay keenaan tamarta electric charge ka soconaya ay keenaan ayaa la yiraahdaa electric current example ka waxa la yiraahdaa electric current qulqulka dabkeena wire dhex maraya qulqulka dabka wire ka xarigaas soo dhex maraya wuxuu tusaale u noqonayaa tamartii korontada waxa kale oo kamid ah lightning during the thunder lightning baa kelmadda loo akhriyaa lightning during the thunder lightning during thunder waxa weeyaan danabka roobka ka dhasha ee xilliga duufaanada yimaada isna example wuxuu yahay maxay waa demonstrationska ugu fiican ee la arki karo macna tusaalayaasha ugu waaweyn ee la arko ee practicalka weeyaan xilliga roobku daayo dabaylaha waxa ka dhasha danabkaas waxa la yiraahdaa lightning baa la yiraahdaa lightningkaas waxa weeyaan isaguna wuxuu noqonayaa maxay wuxuu example u noqonayaa and energy loo yaqaan electrical energy aynu soo gudubno tamarta G waxa la yiraahdaa radiant energy tamartaas waxa loo yaqaan radiant energy waa energy carried by radiation tamarta ay soo qaadaan radiation ku ka hawaalada ama shucaac ay ka dhalanaysaa by both visible light waxa keeni kara labada ugu fiican ee radiation-ka waxa weeyaan tamarta radiant energy-ga ay ka soo baxaan waxa weeyaan labada visible light-ka iyo infrared visible light and infrared both waxa weeyaan labadu waxay ku yimaadaan energy goodu wuxuu noqonayaa radiant energy tusaale keen hadii la yiraahdo the light-kaas waa visible light comes from the sun ilayska ka imanaya muxuu ahaayay qorraxda here is sun halkaas waa maxay halkaas waxa weeyaan waa sun light ilayska comes ka imaada from the sun qorraxda ayaa good example wuxuu yahay maxay tusaale fiican wuxuu yahay radiant energy adeegyada fallaadhii soo deysay fallaadhii way soo socdeen space bay soo mareen dhulka ku soo dhaceen dabeetana by means of radiation bay dhulka ku yimaadeen this energy goodu wuxuu noqonayaa radiant energy energy goodu wuxuu noqonayaa radiant energy radio waves from the area markaad idaacada dhageysanayso hirarka radio waveska loo yaqaan intay transmitterka ka yimaadaan warlaliyaha intay ka yimaadaan hawada soo maray dabeetana aerialka raadiyoga ka soo galay idaacada aad ka dhageysatay kuwaasna example wuxuu noqonayaa radiant energy example noqonaya waxa kale oo kamid ah tamaraha aynu doonayno in halkan ku akhrino tamaraha waxa kamid ah tamarta loo yaqaan gravitational potential energy oo ah tamarta walxaha dhulka dushiisa ee la ku kaydsan baa la yiraahdaa gravitational laba meelood baa wixii isku jira waa something rising on a top of a cliff waa dhagax dul yaalla buur yar dhagaxaas buurta waxa ku haya tamartiisa loo yaqaan gravitational potential energy tamartaas waxa loo yaqaan gravitational potential energy is the energy waa tamarta raising object shayada meel yaalla tusaale waxa la yidhi stone dhagaxa on a top of a cliff waxa la yiraahdaa buurta yar dhagax weyn oo xaafadii buuraha yar ee Hargeysa ku wareegsan hadii aad tagto dhagaxyo waaweyn oo waxaad arkaysaa buurta dhakedeeda halka u sareysa taagan dhagaxaas waxa weeyaan bartaas ku dhigsan dabeetana ma soo dhacayaba sababtoo ah waxa weeyaan halka wuxuu ku yaalaa tamartiisii ahayd gravitational potential energy ayuu on the top of the cliff ku jira marka waxa la oranayaa dhagaxa waxa loo akhriyaa
waxa la odhanayaa for example waxa la odhanayaa stone on a top of a cliff waa dhagax dhakada ka saaran buur yar cliff la buurteer has wuxuu leeyahay gravitational potential energy oo loo soo qaabsaday GPE haddaba in yar waxaan doonaa ardayda inaan samayno for example markuu ardaygu foon yahay waxa looga baahan yahay terminology-gaas marka sharaxaada dheer aynu qornay laga yimaado bal energy-da sida hay'ad u taxawal oran kara hadaan tusaalahaan imka su'aalidu weydiiyo ardayay oo aan ku raahdo kuma ku soo celinaya oo qoraya the names of the energy noocyada tamarihii aynu halka ku qornay magacyadooda taxadii lagu raahdo waxa uu horeeya as form 1 arday form 1 looga baahan waxa weeyaan in order to write the names of the energy waa inuu si isku xigto u qori karaa magacyada tamaraha oo ay form bad ka soo baxday waradad form ka timidna terminology la doonayo physics-ka waxa uu horeeya balorta inaad magacan qabato oo sidiisa u qori karto oo tamartan magaceeda aad by hand buugaaga yar notebook ku qori karto tijaabo bal arrinkaas aynu qabanay la qabta waxaan doonaynaa tamarihii magacyadoodii aynu halkaas ku dareenayno ku taxno oo tamartii koowaad maxay ahayd aynu dhigan ila qor waana adiguna la socoto waxaan arday waa inaad tiraahdaa elastic hey potential hey energy koowaad elastic potential energy tamartii labaad aynu soo sharaxnay maxay ahayd haddii aad iigu soo celiso maxay ahayd magaceedii just we write the names of the energy wuxuun baynu qoranaa magacyada tamaraha thermal energy iyadana waa inaad tiraahdaa waa tamarta kulaylka thermal energy waxa la yiraahdaa tamarta kulaylka magaca kale loo yaqaan hadda bracket geliya maxaa la yiraahdaa heat energy baa la yiraahdaa heat energy haddaan yartaa hore ku noqoto lafteeda waxa la yiraahdaa strain energy iyaduna magac labaad bay leedahay waa strain energy tamartii saddexaad aynu soo dhiganay maxay ahayd haddaynu dib ugu celino waa tan nuclear energy inaad soo xasuusta la doonayo nuclear energy way tamartii afraad aynu soo sharaxnay maxay ahayd haddaynu halkaan sheego waxa ahayd chemical energy way tamartii kiimikaad bay ahayd shan tamarta labaad ee maanta dhiganaadeen halka ku qorna maxay ahayd kinetic energy way tamarta socodka kinetic energy iyadana halka qoran tamartii lixaad ee sharaxnay maxay ahayd haddaynu iyadana soo qaadno tamarta korontada electrical energy iyadana maxaa la dhahaa electrical energy way tamarta toddobaad ee soo sharaxnay maxay haddaynu iyadana magaceeda soo qaadano tamarta radiant energy iyadana waxay ahayd maxay radiant energy tamarta sideedaad ee aynu markaa iyadana meesha ku qornay maxay ahayd gravitational potential energy iyadana maxay ahayd gravitational waana soo qorto energy gravitational potential sorry yana potential ka boodi gravitational potential energy baa waa tamarta ku kaydsan maxay shayada meel yaala dhulka dushiisa yaala baa leedahay gravitational potential energy wala uu khaasa taba this is waan yar u samaysa summary ba ku qorata doonto summary waxaa samaysay maxay summary saasaa tamari u taxda waxaan xiisadeena dambe insha Allah raacin doonaa tamaraha laba ka mid ah ayaynu casharkeena raacin doonaa oo markaa casharkeena dambe inooga dhigno wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aqoontiisa baro lagama